السلام عليكم سودا ودا صاحب بيال waxaan qaadanaynaa wada sheekaysi aad u xiiso badan kuna saabsan choking conversation wada sheekaysi kaftan ah waxa uu u dhacayaa sida tan before speaking hadalka hortiis before ka hor speaking hadalka ama ka hor hadalka you must think waa inaad fikirtaa what you want waxa aad doonayso to say inaad dhahdo ka hor hadalka waa inaad ka fikirtaa waxa aad doonayso inaad dhahdo because maxaa yeelay it has already been said hora waxa loo yiri it has already been said hora waxa loo yiri look before you leap ka fiirso ama intaadan falin ka fiirso look before you leap waa mahmaah English ah intaadan falin ka fiirso oo ah look before you leap and you should limit waa inaad xadidaa and you should limit waa inaad xadidaa erga limit waa xadidaad your eyes indhahaaga if you jump haddii aad boodo or not ama aadan sameynin ama aadan boodin cafwan you cannot do ma samayn kadid anything waxba so sida darteed calm down isdeji so calm down sida darteed isdeji before kahor before I prick you kahor inta aanan jabin ama before I prick kahor inta aanan jabin your little pawns lafahaaga yaryar little waa yaryar pawnsna waa lafo kahor inta aanan jabin lafahaaga yaryar into pieces cadad inta aan u jabin into pieces cadcad ayaa la yiraahdaa pieces waa cadcad marka inta aanan cadcad u jabin lugahaaga waa inaad isdejisaa if hadii you go aad u socoto ama aad aado on like this way habkan hadii aad ku socoto you will in danger halis ayaad ku jiri doontaa you will in danger khatar ayaad ku jiri doontaa yourself nafsadaada and you will be waxaadna noqon doontaa like a fish sida kalluun ama malay out of water biyaha banaankooda jooga hal mar ayaan dul marayaa before speaking you must think what you wanted to say because it has already been said look before you leap and you should limit your eyes if you jump or not you cannot do anything so calm down before I prick your little pawns into pieces if you go on like this way you will endanger yourself and you will be like a fish out of water inta ayaan kusoo gabagabaynayaa waana mahadsantihiin waana ku mahadsantihiin daawashadiina quruxda badan